Assalaamu calaykum Perfectis. Kusoo dhawaada podcastgeena Perfect Sport with Fatima. Waxaa mar walba idin soo jeedin doonta anigoo ah Faadimo Diiwaan Axmed. Isku soo naqad wanaagsan. Maanta insha Allah waxaa ka hadli doonaa arsaaqda. Sidee ku noqon kartaa qof Ilaahay albaabada risqiga u furay isla markaana u barakeeyay. Waxaan ku bilaabeynaa magaca Ilaahay Ismullaahi Arrazaaq. Si Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noogu furo albaabada risqiga. Marka ugu horeyso maqashid risqi maxaa kugu soo dhaca markii lagu dhaho qofkaaneeti waa qof Ilaahay albaabada risqiga u furay ama qof marzuuq ah maxaa ka fahamtaa ama maxaa kugu soo dhaca yacni risqiga ma waxay la mid tahay oo kaliya inay tahay lacag. Run ahaantii waxaa ka mid ahay dadkii u maleeyay jiray risqiga inay tahay lacag. Ilaahay ma ka maqlo qofkaaneeti albaabada risqiga ayuu u furay ama qofkaas risqi badan ayuu haystaa ma ka maqli jiray. Waxa uu maleeyay jiray inuu qofkaas lacag badan uu leeyahay ama hanti oo kaliya uu leeyahay. Laakiin waxaa la sheegaa lacagta inay tahay risqiyaasha mid ugu hooseyso ama ugu liidato. Marka maanta insha Allah waxa kala qaybin doonaa mowduucan ilaa 3 qaybood. Qaybta koowaad oo ah waa maxay risqi. Kooda hore in asal fahamno maxaa laga wadaa risqi. Tan labaad oo ah noocyasha risqiga ee jiraan meeqa nooc oo risqi ayaa jira. Tan saddexaad oo ah sidee ku noqon kartaa qof marzuuq ah ama qof risqi badan haysta isla markaana barakeysan. Haddii aan ku bilaabo qeexitaanka risqiga. Risqi waxaa la dhahaa wax walba uu bini'aadamka ka faa'iido oo ka intifaaco. Waxaas waxay noqon karaan wax maadi ah sida xoolaha bini'aadamku haysto. Hanti haday ahaato maxaa lo geel ari haday ahaato dhulal. Waxaa kaloo risqi la dhihi karaa beeraha iyo wax walbo beerahaas ka soo baxa. Dahabka wax walbo bini'aadamka ay cunaan ama ay cabaan dharka ay xirtaan. Waxyaalaha ay isticmaalaan waxyaalaha guriga ay u isticmaalaan. Haddii aad leedahay mobile haddii aad leedahay computer waxyaalahaas oo dhan asxaab wanaagsan family hadaa leedahay aabo hadaa leedahay qof oo maanta ku tiirsan tahay oo sanadku macallimiin hadaa cilmi soo baratay waxaas oo dhan risqi la dhahaa. Waxaa kaloo qayb kale waxaa jirto risqi macnawi ah sida cilmiga bini'aadamku uu leeyahay aqligiisa garaadkiisa haybada dabeecad wanaaga. Waxyaalahaas iyadan waxaa lagu magacaabaa inay tahay risqi. Marka sida hadda meeshan u jeedno risqiga wuu baaxad weyn yahay lacagna kuma koobno oo waxaa jirta risqiyaal badan oo nolosheen ku jirto aanan u haysan inay tahay risqi laakiinse waa risqi. Cilmiga bini'aadamku ka haysto risqiga waa cilmi kooban oo xadidan mana aha risqiga wax anaga soo koobi karna ama aan tirin karno. Hadaa dhahno risqiyaasha ahaysan oo nolosheen ku jira dhan waa tirineena ma wax anaga soo koobi karno. Haddii aan gudbo qaybta labaad oo ah noocyasha risqiga meeqa nooc oo risqi ayaa jirta. Waxaa jirta 2 nooc oo risqi ah. Risqiga koowaad waxaa lagu magacaabaa risqun yatlubuka ama risqun fadli. Yatlubuka waa risqi adag ku soo raadsanaya. Risqiyaneeti ma kaaga baahna wax juhdi inaad bixisid ama raadisid adduunka meel walba aad ka joogtid asaga ayaa ku soo raadsanaya. Nooci rabta hadaa ahaatid cimri walba aad jirtid wadan walba aad ka soo jeedid asaga ayaa ku soo raadsanaya. Tusaale ahaan waxa soo qaadi karnaa sida hadiyada qof bini'aadamku hadiyo ku keeno ma aha risqi adiga juhdi u bixisid inaad heshid waa qof bini'aadam wuxuu ku soo garto. ama martiqaadka maanta qofku martiqaad waa risqi fadli ama risqi aad ku soo raadsaday. Waxaa kaloo tusaale u ah dhaxalka waxaa la yaabaa cunug yar oo hadda markuu adduunka imaaday uu yahay qof Ilaahay risqi badan uu siiyay hantiyaal badan uu leeyahay. Cunugaas yar oo hadda adduunka imaaday waxaa la yaabaa cunugaaseeti inuu risqigaas ka dhaxlay aabihiisa oo mar dhow geeriyooday. Risqigaas oo helay cunugaaseeti wax juhdi uu bixiyay ma leh mana raadinin asaga hadda adduunka imaaday risqiga asaga ayaa soo raadsaday.
sidaas kale waxaa lagu magacaabaa risqun yatlubuka, risqi aad kusoo raadsanayo waay. waxaa jirta nooc kale oo risqi ah oo loo yaqaano risqun tatlubuhu, risqi adiga aad raadinaysid. risqigan wuxuu kaaga baahan yahay juhdi inaad bixisid, inaad raadisid. hataa haduu adduunka kaga yaalo meesha adduunka ugu dambeyso, waxaa lagaaga baahan yahay juhdi. sida Soomaalida ay dhahaan, nimaa shaqaysanin shahwa ka xaaraan oo la mid yahay risqiganeed. waxaa lagaaga baahan yahay juhdi inaad bixisid, inaad risqigaas heshid. tusaalaha ugu soo dhaw soo qaadan kara hadda waxaa kamid ah qofka bini'aadamka shaqeeya. hadaadan shaqaysanin way adag tahay inaad mushaar heshid oo lacag ay heshid. sidaas daraadeeda subax ilaah keenaya kala heesaa oo 30 bari ayaa si straight meel u aadeysa oo goobta shaqada u aadeysa. hadaadan shaqaysanin lagama yaabo inaad lacag heshid ama risqigaas lacagta aadan helin. sidaas oo kale risqiyaal kale waxaa jiraan kaaga baahan in adiga aad raadisid. hadaan adiga raadinin aysan ku imaanin. waxaa kaloo la mid ah cilmiga asagoo socdo ma ku imaanay. cilmiga wuxuu rabaa inaad raadisid, inaad tagtid meelaha cilmiga lagu bixiyo, dadka cilmiga bixiyaan aad la xiriirtid. hadaadan waxaas sameynin way adag tahay inaad cilmi heshid. nooca rabto cilmi ha ahaato, xirfad ha ahaato, diin ha ahaato, maadi ha ahaato, waa risqi adiga aad raadinaysid oo kaaga baahan inaad bixisid juhdi. hadaadan juhdi bixinin lagama yaabo risqigaas inaad heshid. qaybta saddexaad oo ah sidee ku noqon kartaa qof Ilaahay albaabada risqiga u furay isla markaana u barakeeyay. waxaa jirta waxyaalo bini'aadamka haday sameeyaan risqigooda badin kara. aniga waxaa tusaale usoo qaatay ilaa 6 ashyaa hadaa sameysid risqigaaga badinayso. tan ugu horeyso waxa waaye mahad celinta. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu dhahay la in shakartum la aziidannakum. haddii aad ii mahad celisaan waa idin ziyaadinaa. nimco walbo Ilaahay ku siiyey iyo risqi walbo Ilaahay ku siiyey, hadaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahad celisid, Ilaahay asagana wuu ku badinaa isla markaana wuu ku barakeynaa. tan labaad oo risqiga badisa waa istighfaarta. istighfaarta waxaa la sheegaa inay kamid tahay waxyaalaha risqiga ziyaadiya. sababtana waxa waaye bini'aadamka dunuubta ay sameeyaan waxay ka celisaa inay helaan arsaaqdooda. sidaas daraadeed istighfaarta waxay baabi'inaysaa ama tirtiraysaa dambiyaasha bini'aadamka ay sameeyaan. taasna waxay fududeynaysaa inaad risqiga u heshid sida ugu fudud. tan saddexaad oo risqiga badisa waa inaad xiriirisid qaraabada. nabigeena calayhi afdalu salaatu wassalaam wuxuu dhahay man axabba an yubsata lahu fi risqihi wa yunsa lahu fi ajlihi falyattaqi illaah walyasir raximah. qofkii raba in risqigiisa loo badiyo, cimrigiisana loo dheereeyo, Ilaahay ha ka cabsado, qaraabadan ha xiriiriyo. qaraabada waxay kamid tahay waxyaalaha risqiga badiya isla markaana barakeeya. qaraabadaada isku day inaad xiriirisid. haddii ay noqoto inaad mobile ka wacdid amaba inaad ku booqatid meelaha ay joogaan adigoo u niyeysanaysid camalkaas markaa qabanaysid inay tahay xiriirinta qaraabada. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala asagana arsaaqdaada ayuu ku badinaa. waxaa kaloo kamid ah oo risqiga badiya sadaqada. waxaa la dhahay sadaqada waxay barakeysaa maalkaaga. mar walbo Ilaahay wax ku siiyo isku day wax yar inaad ka bixisid. waxaas oo Ilaahay ku siiyo haday ahaato lacag, haday ahaato xoog, haday ahaato caqli, haday ahaato cunto, dhar, maal, isku day wax yar, waxa ugu yar markuu Ilaahay maanta $1 ku siiyo isku day hadaa 25 senti ama wax ka yar inaad bixisid Ilaahay dartiisa u bixisid. Ilaahay maanta xoog ku siiyo qof bini'aadam ku caawi xoogaaga. cilmiga qof bini'aadam cilmigiisa balaash wax u bar, adigana cilmigaas Ilaahay wuu ku badinaa wuuna ku ziyaadinayaa. waxyaalaha kale oo risqiga badiya waxaa kamid ah itqaanul camal. qofka bini'aadamka inuu camalkiisa ugu soo baxa ama hawsha uu qabanayo ugu soo baxo sida uu saxsan Ilaahay dartiisana uu qabto asagoo aan sameynin waxyaalo laab ama qish wax walba uu qabanayo inuu qabto sida ugu saxsan. tan kale ugu dambeyso oo ah ducada. bini'aadamka inuu ku duceysto inuu Ilaahay risqigiisa u badiyo una barakeeyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku dhahay waqul rabbukum ud'uuni astajib lakum. Ilaahay wuxuu dhahay duceysta waa idin ajiibaya. ducada iyadana waxay kamid tahay waxyaalaha risqiga badiya. waxaa jirto gabar lagu magacaabo
Nuur Kaysan waa gabar Carab ah isla markaana YouTuber ah. Gabadhaas waxay dhahday mar ay ka hadlaysay risqiga, ducadan isku day mar walba inaad ku duceysataan ducada oo ah Allahumma urzuqni warzuq minni, Ilaahayow wax i sii, sabab iiga dhig dad kale sababteeda inay wax ku helaan. Marka gabadhan ducadan ka maqlay waxaa bilaabay inaan mar walba ku duceysto. Ducadan maan ku xirin waqti mucayan ah ama aanan dhihin waxa aqrinaa xilliga salaada kadib, nambarna maanan ku xadidin. Waxa aqri jiray mar walba igu soo dhacdo xaalad walba markaas aan ku suganahay. Mar walba waxa iska dhihi jiray Allahumma arzuqni warzuq minni, Allahumma arzuqni warzuq minni, Allahumma arzuqni warzuq minni. Marka ducadaneeti waa duco cajiib ah. Tusaalan waxa idin soo qaadan doonaa 2 tusaalo. Tusaale caadi ah si idin fahamsiiyo ducadaneeti iyo tusaale anigu dhacday oo i fahamsiisay macnaha saxda ah ee ducadaneeti si markaas mar walba u aqrin jiray. Tusaalaha koowaad oo ah tusaale waxa soo qaadanaynaa qof ganacsata ama shirkad leh. Qofkaas ganacsatada ah waxa uu shaqeeyaan dad oo ah shaqaalo shirkadaas u shaqeeyaan. Markay shirkadaasi Ilaahay risqi oo siiyo ee sameeyaan faa'iido badan, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala shirkadaasi wuxuu siiyay risqi ma ku siiyay shirkadaasi waxay bilaabday inay mushaar siiso shaqaalaheeda. Mushaarkaas ee shaqaalaha ee siisay waxay ku support gareeyeen qoysaskooda inay ka bixiyaan biilalka, inay ilmahooda waxbarashada ka bixiyaan, inay naftooda ku asturaan. Qofkaas shirkadaas leh Ilaahay risqi ayuu siiyay, wuxuuna Ilaahay asii risqigiisa sabab ugu dhigay dad kale inay risqi helaan oo ayna guryahooda iyo naftoodaba ay ku asturaan. Sidaas daraadeed ayaa laga wadaa ducadan Ilaahayow wax i sii, sabab iga dhig anina dad kale inaa sabab u noqdo inay risqi helaan. Ducadan waxay faa'iido u leedahay mar walba oo adiga dad badan caawisid inay ayaga risqi helaan, adigana mar walba Ilaahay risqi ayuu ku furaa. Sidaas daraadeed ay ahmiyad u leedahay ducadan. Tusaalaha aan rabo inaan idin wadaago waa tusaale anigu dhacay. Markaan Nuur ka maqlay ducadan Allahumma arzuqni warzuq minni, mar walba ay iska duceysan jiray. Xilliga uu soo dhacay iska dhihi jiray, xilliga hilmaamsanahay waaba iska hilmaamsanahay. Marka maalin maamaha kamid ah xilli habeen ah anuu mobilka iska isticmaalay ducada uu soo dhacay. Bas meel iska fiiriyay waxa dhahay Allahumma arzuqni warzuq minni, Allahumma arzuqni warzuq minni, Allahumma arzuqni warzuq minni. Anuu sidaas iska dhahay waxa ay soo wacay qof qaraabada kamid ah. Waxay dhahay faado maxaa rabaa inay caawisid, alaab ayaa rabaa inay soo iibisid, laakiin qarashka alaabtaas ku baxay maaha qarash aan hadda haysto. Marka waxa la okay dhib male waa ku caawinaa. Marka qofkaasi 3 shay ayaa ku caawiyay. Risqiga ugu horeey Ilaahay uu siiyay waxay ahayd inaa qarashki hay. Risqiga labaad oo Ilaahay siiyay waxay ahayd inaa hayo xoogi. Risqiga saddexaad oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay waxay ahayd inaa markaasi firaaqo ahay waqti ahay. Anuu saddexdaas risqi Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay kaashana ayaa qofkii u soo adeegay. Marka uu soo adeegay alaabta u habeeyay, qofkaas wuxuu ahaa qof gobol jira, gobolka ayaa u dhiibay qarashaadka ku baxay dhan aniga ayaa bixiyay. Qofkaasi markii alaabtaas u tagto alaabtaas uu iibinaa, markuu iibiyo wuxuu ka helaa faa'iido. Qofkaasi wuxuu i soo celinaa lacagtii alaabtaas ku baxday oo aniga aan lahay. Lacagtaasi aniga qofkaas aan ku caawiyay iyo waqtigaasi iyo xoogaas aan ku caawiyay wuxuu ka sameeyay faa'iido. Faa'iidadaasna asaga ayaa isticmaalaya oo qoyskiisa ayuu ku caawinaa. Markaas kadib ayaa fahmay ducadaneeti Ilaahay wax i sii, anigana sabab ii dhig dad kale inay wax helaan. Si mar walba oo dad caawisid amaba oo risqigaasi ku koobna lacag Ilaahay maxaa cilmi ku caawisid, xoog ku caawisid, yani wax walba ay tahay ku caawisid risqi aadana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ka badan ka soo gelinaa. Waxa la yaabaa fahamka ana hadoo fahamsanahay maadaama qofkaas qarashaad ku caawiyay inuu Ilaahay asana qarashaadkiisa soo celinayo, laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof ma wax siinayo ama awaal marinayo hal shay oo kaliya ku awaal mari waxyaalo badan oo ku awaal marinayo jirto. Ani hadoo kaliya waxa fahamsanahay qofkaas ku caawiyay qarashaad inaa ku caawiyay waqti iyo inaa ku caawiyay xoog, laakiin waxa la yaabaa waxyaalo kale inaa ku caawiyay oo arsaaq Ilaahay siiyay
aan had ka warhanin laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo awaar marinayo marka ducada muhiim waa mar walba isku day inaad ku duceysataan mar walba ku duceystaan inuu Ilaahay idinkaga dhigo sabab dad kale inay wax helaan adina asloonka dad badan sabab u tahay inay wax helaan adina Ilaahay wax ayuu ku siinayaa marka insha Allah maanta mawduucina maanta meesha ku egyahay waxaan rajeynayaa inaad fahamteen maxaa waa risqi inuusan ku koobnayn oo kaliya lacag uu ka baaxad weyn yahay iyo mar walba inaad ducadan ku duceysataan Allahumma arzuqni warzuq minni insha Allah waxaan rajeynayaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhamaanteen noo wada furo albaabada risqiga oo noo barakeeyo waxaan rajeynayaa nolol wanaagsan oo saameyn leh maca salaama